Ma rabtaa inaad noqoto qofka uu qof walba rabo inuu la hadlo laakiin uusan qofna ku dhiiran karin? Maanta waxaan kuu soo bandhigayaa 5 xeer oo ka mid ah cilmi nafsiga madow, dark psychology, kuwaas oo qofka aad rabto ka dhigaya mid addoon u ah fikirkaaga. Heerka 1 aad heerka maqnaanshaha. Haddii aad had iyo jeer diyaar tahay, waxaad tahay qof raqiis ah. Ha noqon qofka markasta fariimaha messages ka jawaaba ilbirisiyo gudahood. U ogolow inay ku weyn oo ay isweydiiyaan, muxuu qofkani hadda qabanayaa? Maqnaanshahaaga ayaa kordhiya qiimahaaga. Heerka 2 baad farsamada xanshada. Markaad la hadlayso, hoos u dhig codkaaga. Ha qaylin. Markaad aayar u hadasho, qofka kale wuxuu ku qasbanaanayaa inuu kugu soo dhawaado si uu kuu maqlo. Tani waxay abuurtaa xiriir maskaxeed oo aad u xooggan iyo dareen ah inaad isku dhow tihiin. Heerka 3 aad ammaanta naadirka ah. Ha noqon qofka qof walba ammaan dhibsan ku shuba. Haddii aad qof walba u sheegto inay qurux badan yihiin, ereygaagu qiimo ma laha. Laakiin haddii aad hal mar oo keliya si dhab ah u ammaanto wax gaar ah oo qofkaas leeyahay, wuxuu ammaantaas xasuusan doonaa inta uu nool yahay. Heerka 4 aad kicinta dareenka. Maalin si fiican ula hadal, u dhoola cadee oo dareen sii. Maalinta xigta noqo qof degan, xoogaa iska fog oo aan wax dareen ah muujin. Qofkaas wuxuu bilaabi doonaa inuu baadi goobo qofkii shalay la hadlayay. Wuxuu kugu waali doonaa isagoo raba inuu dareenkaaga mar kale soo jiito. Heerka 5 aad sirta qarsoon. Weligaa wax walba oo noloshaada ah ha u sheegin. Qofka aan wax walba laga ogeyn waa qofka ugu soo jiidashada badan. Ka tag su'aalo aan jawaab lahayn. U daa inay habeenkii oo dhan ka fikiraan, waa kuma qofkani dhab ahaan. Haddii aad rabto inaad nolosha ku guulaysato oo aad qof walba maskaxdiisa gacanta ku dhigto, raac bagakayga oo ku qor faallada ereyga cilmi nafsi follow ii dheh si aad qaybta xigta u heshid.